boqolaalkan shacabka ah ee muuqaalkooda idin muuqdo waa kuwa ka baroordiiqayay dhacdadii 28 Diseembar sanadkeena soo macasalaameynay ee 2019 ka dhacday isgoyska ex control afgooye ee Muqdisho. Bannaanbaxan oo looga soo horjeeday qaraxaasi ayaa lagu qabtay xerada tababarka ciidamada booliiska Soomaaliya ee General Kaahiye ee magaalada Muqdisho. 17 degme ee gobolka Banaadir shacab laga kala keenay ayaa iskugu yimid goobta oo bannaanbaxani ka dhacay waxaa ku sugnaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ku xigeenadiisa xubno ka tirsan aqalada baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir. Bannaanbaxayaasha ayaa waxa madaxa ay ku xidheen maro guduudan oo ay ku muujinayaan mashaqadii ka dhacday goobta iyadoona boorarka ay ku bannaanbaxayeen lagu xardhay ereyo lagu diidan yahay Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Finish oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu si adag ula hadlay ganacsatada Soomaaliyeed oo uu sheegay in lacagaha ay bixiyaan lagu dhibaateeyay dadka shacabka ah arrintaasina ay tahay mid aan loo dul qaadan karin. Waxaana uu gudoomiyuhu waxba kama jiraan ku tilmaamay in dalka Turkiga oo inta badan caawiya Soomaaliya uu yahay mid ku soo duulay dhulka ay Soomaalidu leedahay. Turkidu markaan baahanay way noqodiyeen, markaan bukanayna wayna daaweeyeen, markaan burburnayna wadaday noo dhisayeen. Turkidu markii ciyaalkeena la soo khalday ay injineeradooda aqoon-yahanadooda ay dileen nagama aarsane kuweenii la dhintay kuweenii la dhaawacmay ayay u soo direen diyaarad dawo iyo dhaqaatiir. haddii aan dhaawacmo kan diyaaradda ii soo dira daawada ii keena dhaqaatiirta ii keena dalkiisa ii geeya cadowgayga miya? dadka wax bartay dadka hantida leh waxaan rabaa inaan u sheego kan wax bartay inuu dadka u sheego cadowgiisu inuu Al-Shabaab yahay inuusan ka baqan. midka hantida haysta handadaadda lacagaha baadda ah looga qaadayo waa inuu iska diido waayo ubadkooda ayaa lagu baabi'inayaa. waxaad adiga og tahay maanta haddii laga qaado berrito ubadkaaga in lagu baabi'inayo in aad bixisaaho soo doqonnimo maaha. dhankiisa sareeye Gaas Cabdi Xasan Xijaar taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab looga adkaan karo wada shaqayn dhab oo dhex mara shacabka iyo ciidanka. qof kasta oo maskaxdaada waxaad gelisaa ummadda Soomaaliyeed dhulkeedii inuu kan yahay waxaad ku talagelaysaa ama dibad joog ama guda joog meesha hoygaagu yahay oo aad ku dhalatay oo aad wax ku baratay oo aad rabo inaad ku dhaqantay inay halka tahay dal kastoo dibadda aad joogto inuusan ku ahayn dalkaaga ee uu yahay dalkaagii halka marka inaad ka qayb qaadataan nabadgelyadiisa sidaa uga qayb qaadanaysaanna maaha inaad qoryo qaadanaysaan ood ku soo duulaysaan maaha waxaad qoryaha u qaadanaysaan hadalka iyo jacaylka iyo dareenka iyo u gargaaridda iyo garab istaagga ciidanka ku hawlan amniga magaalada ku hawlan ama amniga dalka ku hawlan hadduu militariga iyo hadduu biliiska yahay kuwaas inaad garab siiso oo qalinka aad qorayso garab ku siiso. isu soo baxan shacabka magaalada Muqdisho ku nool ay kaga falcelinayaan dhacdadii bishii aynu soo dhaafnay ee Diseembar ka dhacday isgoyska ex control afgooye ee Muqdisho ayaa waxa ay muujinaysaa sida shacabka Soomaaliyeed ay u danaynayaan helitaanka nabad waarta. Ciidaar Usmaagane wararka laanta afka Soomaaliga ee telefishinka codka bariga Afrika Muqdisho.